Khalid iyo Xigmad oo 15 sano jir ah iyo Umar oo 13 jir ah waa saddex wiil oo dhalinyaro ah oo ka soo hayaamay dagaalada ka soconaya dalka Syria waxayna yimaadeen magaalada Muqdisho sanad ka hor waxayna hadda bilaabeen inay fahmaan carruurta Soomaaliyeed iyo dhalinyarada ku ciyaara garoomada kala duwan ee magaalada Muqdisho garoonka macquul oo Muqdisho Cable Sports ay ku qabato tartanka bisha Ramadaan ay saddexdan wiil imaadaan maalin kasta si ay dhalinyarada ula ciyaaraan ciyaarta inta aysan bilaaban iyo marka ay dhamaato waxayna garoonka la yimaadaan kubado mararka qaar waxa la siiyaa kubadaha garoonka si ay dhalinyarada iyo carruurta halkaasi ula baashaalaan ay waqti ula qaataan waxaana kadib ay dhalinyarada ay siiyaan wixii awoodaan ay ugu talagalaan inay ku sadaqaystaan Umar oo 13 sano jir ah waxa uu jecel yahay goolhaynimo waxaana uu sheegay in markii uu joogay Dimashq uu ka ciyaari jiray booska goolhaynimada waalidkiisana ay joogaan magaalada Muqdisho sidoo kale waxa la socotay gabar la dhalatay oo inta badan ay wehliyaan waxayna ku caawisaa inay u hayso dharka markay kubadaha ay dheelayaan Xigmad oo isagana 17 sano jir ayaa ii sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu la ciyaaro dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay inay rajeynayaan inay fahmaan luqadda Soomaaliga si ay ula ciyaaraan markasta ay firaaqo helaan saddexdooda ayaan la hadlay waxaana mid kasta aan weydiiyay magaciisa da'diisa iyo waxa ay jecel yihiin iyo sida dareenkooda uu yahay marka ay la ciyaarayaan dhalinyarada Soomaaliyeed marka hore Khalid ayaana ku bilaabay sida tan magacaygu waa Khalid waxaan ahay 15 sano jir waxaan imid halkan sanad ka hor waxaan la noolahay qoyskayga oo degan degmada Hodan waxaana jeclahay kubadda cagta galabkii ayaan ka soo baxaa xaafadeeda si aan u imaado garoomada qaasatan garoonkan oo aan galab walba ku ciyaaro markaan garoonka soo galno wayna xushmeeyaan dhalinyarada waxayna siiyaan kubadda waxaan isku qaybinaa laba kooxood Xigmad oo 15 sano jir ayaa isagana dareenkiisa ku cabiray sida tan magacaygu waa Xigmad waxaan ahay 15 sano jir waxaana jeclahay kubadda cagta dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwa isboortiga jecel waxaan rajeyn doonaa inaan sii wadi doono ciyaarista kubadda cagta Umar oo 13 sano jir isagana ka ciyaara goolhaynimada ayaa dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay Soomaaliya laakiin uu rajeynayo in mar uun oo dalkooda ay ku laaban doonaan waxaan ku ciyaari jiray wadooyinka magaalada Dimashq ee dalka Syria halka markii ay nabadda ahayd waxaan ka soo cararnay dagaalada Syria ka socda waxaan rajeyn doonaa in isbedel fara badan uu ku imaan doono marka la fiiriyo xaaladaheena qoyskayga ayaa la noolahay waxa jirta in gal walba aan imaano garoonka carruurtan Xigmad Khalid iyo Umar ayaa waxa ay gal walba lagu arkaa garoomada qaasatan garoonka macquul ay bilaabeen inay la ciyaaraan dhalinyarada Soomaaliyeed